بري وجود مية ودم وحاسوب حيي ورر أي ضد دليرة أو صوماليات آد صور الأحمرية وكوساب سن برنامج لو بحيي سي أون ستايل سي شيء أما سي شيء أون ستايل برنامج كنا حطبا وحاور بحنتنا كتير سي بي بي سي ده أو ترجمتي استمركنا عن يسوع كوبن برنامج كان وحصوب حي تانية بياقدي سنة كلا صورة في لبدي كل ما تانية كويدي أما بشي ديسمبر أيام السوشيال وحنا لشجعي إن أب كان عصب إن لقى سمينا يلا عجو أي سوين وقف في السوق كارهم ضد كصومالي ده وحبرها بالشدة الصومالي ده كالسعودي ولا لا أي ضد كقاركود كصوماليين يعني رجالين يجوا قف بالبكولات هلنية إنه سودك سود أب كأولهم مجا سي شيء أون ستايل أو كل شقية تلفون كجانت معلومي يوجد بي أيو سر أسي كعي حسها هذا وحى أي بي بي سي دو كوسما يساي بارتان يسدو كلا ترجمات بحسن شركة سي شيء إن ومدة كبداً 8 سنوات شرتي يبيشي ديسمبر صواب عندك أب كان ويكون شركتي إن العقل وصل ما يردن كدكامي سجاه أو أونلاين وحي شركات دكتور المانتي برامج كان ميد قفك وكفى إذا وقسمينا أيوه مع الكشيء إنه تتكلم سيجارسيو العقل وهي شو إن إبسط بدي عوير أي شركات الصواب عندك يسوق لدوان وحاسب موقعته إنه قفك وصن وود ولا هين إنه وحكست إبسط بس وكو خصبين هي إنه العقل شبطه سي وقته وحياة عيبا أو لقندي سي شيء أون ستايل وحالة قلية هي ودك كوريا كونفريد وحين حيسي مبضن وسميين برنامج كان سيد تطبضن أوبران سلقة وين شركة سي شيء وحوكية لما قال صول عاصمة ودلك كونفرت كوريا صدقوا سيدا أي قيمين كسميين بقول بدن أو فكيف الوضع رماها لحد ده برنامج ده إنترنت كا سيدا إي سي سايبر بلانيت إيو كولينلس وآب أن ليسكوها لكرين waxay ku tilmaameen dhalanteed iyagoo u cuskaday dhowr arrimood ay kamid tahay in la garanaynin goorta uu hawada ka bixi karo iyo cidda loo raaci karo marka gudaha loo galo aabka kuma xusna macluumaadka qeexaya qofka iskale iyo sida ay macaamiishu ku heli karaan lacagooda hadii ay wax isbedelaan sidoo kale bogga Quora oo dadka ay ku soo bandhigaan fikradooda ayaa digniino badan looga jeediyay isticmaalka aabkan dad badan oo Soomaaliyeed ayaa goorsi wareysay waxa lagu dhacay waxa loo yaqaan lacagtii forex taasoo dad badan lacag looga shubtay waxaa jira dad badan oo dirbaba la dhacay shaqada aabkan oo Soomaali kamid tahay oo lacago ay ka sheegeen ka soo xareeyeen isla markaana ka muuqda baraha bulshada dadka qaar ayaa muuqaal ka soo duubay iyagoo si toos ah lacag uga sameynaya barnaamijkan qaar kale oo kamid ah Soomaalida ayaa iyaguna ka soo horjeestay aabkan oo ay ku qeexeen mid aysan gabi ahaan lagu kalsoonaa karin wax hadda bilow ah maaha in Soomaalida iyo dadka kale caalamka ay xiiseeyaan waxyaabo dhinaca online-ka oo aan la garanaynin laakiin dhowr jeer ayaa la sheegay in Soomaalida dhibaaxooyin arrintan degdeg ay ku dhacday markastana waxa loo baahan dadka Soomaalida inay la tashadaan dadka aqoonta u leh internetka sidoo kalena ay macluumaadada ka baaraan waxa loo yaqaan review oo ay Google ku sameeyaan aabkan iyo waxa laga yiri waxay heli doonaan dad khubaro oo tafaasiil ka bixinaya sidoo kalena waxay heli doonaan macluumaad dheeraad ah hase yeeshee inaad lacag iskaga shubto marba meel aadan garanaynin waxay taasi dhibaaxooyin iyo waliba bahdil ku tahay caqliga dadka Soomaalida iyo sidoo kale in laga gurubsado lacagta